mar walba waxa ku tahriibinaya mid naftaada ka jecel inta yare lacag ee aad wadato waxa sida tan iga muuqdo aad u jeedin waa si naxariis dara ah ee qalbigeyga iyo qaluufteeda ay ku taagan tahay macdama gabadhayda adduunyada u jeclahay ay iga tahriibtay ay aaday Nairobi ka tagtay waxay aaday Liibiya ilaa hadda meel lagu sheegay gabadhayda ma hay laakiin waxa la ii sheegay in la yiri gabadhaada waa dhimatay hobseedka ayaa laga helay ama internaajada halka aad ka tahriibayso ayaad adigu leedahay ee marihid meesha aad u tahriibayso ani waxa ku waayay laba wiil oo walaalahay tahriibka mana rabo inuu ku waayo markale walaalahay Soomaaliyeed axyaa wadani wixii aad u tahriibaysay ka fakar inaad wadankaaga kala soo dhaxbaxdo tahriibku waxa kaga waanaya dhalinyarada Soomaaliyeed sidiisaba nafsadaada inaad tahriibto dambi ay kugu tahay tahriibkana ma ahan wax sahal ah ma ahan wax meel biyo laga cabayo waa meel dhib badan waxaan u mahadcelinayaa walaalahayga ururka Sooyaato ayaga ayaa iwaaniyeen ayaga ayaa idaheen bal iska dhaaf tahriibkan waxay u tuseen sawiro oo aan caadi ahayn gabdho wadooyinka lagu qabsaday iyo dad Liibiya ku dhintay adiga rafaadkaas ay duseen waxaan dhaheen taas ka shaqaysato oo wadankaaga aad joogto maxaad ka qabtaa anna bal raayigooda ayaan ku raacay hadda waan shaqaystaa xaas ayaan leeyahay gabaraan leeyahay mar dambe ma doonayo inaan tahriibo insha Allah waxaad dhalinyaro u tahay dhulkaaga ee uma tihid halka aad u tahriibayso dhibaatadii tahriibka waynu wada dhadhaminay dhulka hooyo aamino hayga dhiman hooyo